Ugaasha iyo waxgaradka iyo howldoorka gobolka Sool ayaa kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen waxay taageereen go'aanka ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ku xaqiijinayso amniga magaalada Laascaanood. Kulankan ballaaran oo ay ka muuqdeen ugaasha ugu tunkaroon ayaa waxa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyagoona tilmaamay in go'aanka iyo tallaabooyinka ay xukuumaddu qaatay ay garab taagan yihiin isla markaana ay ku bogaadinayaan. Ugaasha gobolka majority wadi baa fadhiya saxaafadan waxaan ku taageeraynaa dawladda Soomaaliland iyo madaxda joogta gobolka Sool u socda nabadgelyada gobolka Sool hawsha ay wadaan gacan galiyeen haddii nabadgelyadu halka gashay iyo hadday meel kale gashay waa taageersan waxay dawladda waxaynu ku taageeray iyo waftigii inoo yimi inay amniga wax ka qabtaan in lagu taageero amniga sugistiisa looga dambeeyo waxaan maqlayay qolyole guddi baanu in saxaafada laga qayliyaana ma wanaagsana in dawladdii iyo shaqadeedii laga hor yimaadaana ma wanaagsana arrintani dawlad iyo odayaal iyo waxgarad nabadgelyada kulligan xil baa inaga wada saaran waftida timid waanu kala hadalay waxaanu ku heshiinay in geerida la soo afjaro dilka la soo afjaro nin allaala ninkay sababsato qolo kasta ha noqdee nin allaala ninkay sababsato waanu ku taageeraynaa maamulka waanu ku taageeraynaa ninka arrintaas sababsato nooc kasta ha la dilo ha la xidho ha laga saaro magaalada waanu maamulkaanu ku taageeraynaa waxaanu diyaar u nahay oo ku taakeedinaynaa oo ku taageeraynaa wax allaale wixii nabadgelyada soo afjaraya oo dhimashada aanu aragnay ee foosha xun leh haddaan nahay waxgaradka iyo ugaasha gobolka Sool waxaanu raacsanahay oo taageersanahay amniga iyo nabadgelyada laga shaqeynayo ee maamulku ka shaqeynayo diyaarada mas'uuliyiin baa amniga xil baa naga saaran marka maamulka amniga uu maamulku ka shaqeynayo anana waa waafaqsanahay waxaanu bogaadinaynaa dad badan baa meeshan lagu laayay waxaanu bogaadinaynaa arrintan inay soo qabtaan yaanu rabnaa ma garatay waana ku bogaadinaynaa waana ku raacsanahay inay soo qabtaan aad iyo aad u defool xun una fara badnayd ciddii kasta ee hawshaa wax ka qabanaysa waa taageersana ciddii kasta ee hawshaa wax ka qabanaysa waataynu u baahnayn waa taageersanay waxaanu taageersanahay dawladda ka talisa gobolka Sool Somaliland waxaanu ku taageersanahay maadaama aanu anagu ahayn odayaal si kasta oo ay u dhigaan ama u shaqeeyaan waa u soo dhaweynayna waana ula shaqeynayna halkan dawlad baa ka jirta ninkii jecel iyo ninkii necebba iyaga dawlad u amaanta maamulka laga rabaa dalkan iyo dadkan amnigiisa iyaga laga rabaa cid kale oo laga rabaa ma jirto dadka hadlaya way joogeen haday wax qabanayaan marka waan ku taageeranaa haday xal la helayo oo xalkii lagu helayo maamulku dawladda Soomaaliland yar anaga xalkeeda helana waana wixii soo afjarana aad iyo aad baan ugu bogaadinanaa aragti dadka shacabka ka timi weeye in dadkan la saaro oo nabadgelyada si loo sugo waxaanu aad iyo aad u taageeranaa nabadgelyada ay ka wadaan xukuumadda gobolka tallaabaqaadkeedu dawladdu ay ka wado gobolka tallaabaqaadkeedina ay qayb ka mid ah wax ka qabteen intii kale ay ku guda jiraan haddii aanu nahay ugaasha gobolka Sool siirada saraakiisha waa mahadsan yihiin u yimi inay wax ka qabtaan dhibaatada ka taagneyd gobolka Sool waxna qabtay wixii hadhayna waxaanu aad uga codsanaynaa in la sii wado dhammaan ugaasha isugu timi meeshan waxaan isugu nimi inaanu taageero dawladda iyo qaabka u shaqeynayso maamulka gobolka iyo degmada iyo waftida noo timi qaabka saxda ay ku hagayaan gobolka iyo dadka aad baan u soo dhaweynaynaa waana taageersanahay waa Cabdiqani Xasan Faarax iyo Liibaan Qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Laascaanood.